Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada Somali Community College iyo cashiradii haddaan bilownay ku saabsanaa barashada computerka. Casharkan waxaan kusoo qaadan doonaa waxa la yihahdo formatting text. Format text maxaa waaye sidii muuqaalkaaga qoraalkaaga muuqaalkiisa uu u yaalayo. The appearance of the text sida muuqaalka uu u muuqanayo ayaan maanta sameynaynaa. Waxaana ku sameynaynaa stepkan ayaan raacaynaa. Marka intaanan cashirkan ku sameyn lahayn ayaan sameysanaynaa wixii templatekii ama sample-ka aan ku sameynaynaa ayaan sameysanaynaa. Control N ayaan qabanaynaa, page cusub ayaan aadaynaa. Sida kale page cusub loo aadi karo maxaa waaye maxaa aadaysaa file new meeshan blank document aad tigsiinaysaa ka baxdana meeshan ay create ku qoran tahay tigsiinaysaa. Sidaas labada nooc ayaa loo aadaa. Marka kalena waa shortcut ayadoo saan adoo pagekan aada markaad page kale new furanayso waxaa leedahay control N. Okay, hadda waxaan sameysanaynaa marka waxaan sameynaynaa sample-kaan sameysanaynaa equal run shift 9 5 that 5 minus 5 paragraph haddaad 10 paragraph wado 10 aan ka dhigta alafu shift 0 haddana then press enter aa riixaysaa. Marka hadda 5 paragraph ayaan inta ku haysanaa waxaan ku baranaynaa anagoo raacayno step by step-kan. Markaan bold ka dhigi rabno shortcut-keeda waxaa waaye you either click the b-da inaad click siisid or control b laakiin marka hore waa highlight garaynaynaa. Marka paragraph koowaad aan ku sameynaynaa waa highlight garaynaynaa. Midda koowaad aan bold kaga dhigin maxaa waaye b-daan click siinaynaa. Qoraalka hadda wuu isbedel bold means wuu soo weynaaday madowna wuu noqday. Haddaan ka qaadan rabno isla iyadaan highlight saarana isla iyadaan b dhahaynaa b click. Okay, shortcut kale maxaa waaye highlight control b for book ayaad control ka qabanaysaa la taabanaysaa marka saas loo qaada saasaa loo saaraa. Haddaad rabto inaad ka qaadna haddana control b da ayaad taabanaysaa. So hadda waan saaraynaa marka. Next maxaa waaye marka next step maxaa waaye next step italics iyada maxaa waaye you highlight again everything markaa aad sameynaysid text wax ka bedelaysid waa highlight garayn ida b da ku xigta ayaan dhagsiinaynaa. So qoraalka italics uu noqonaa waa fahmi waa aragtaa wuu isbedelayaa. Haddaan zoom wax yar soo dhaho qoraalka wax yar wuu isbedelayaa. Haddaan rabo inaan ka qaado highlight aan dhihi control I aan dhihi haddana. Haddaan rabo inaan saaro highlight control I haddana. Okay, waxaan aadaynaa haddana the next step maxaa waaye sida underline iyo font style. Underline iyadana maxaa waaye markaad wax hoos ka xariiqo tusaale ciwaanka markaa hoos ka xariiqi rabtid hadda line-kan ayaan rabaa ama paragraph-kan hoos ka wada xariiqo highlight aan dhihi u-daasaan click siin hoosay ka wada xariiqmanaya. Haddaan rabo inaan ka qaado highlight-kaan ku celini ayadoo dhan highlight-kaan ku celini u-dan taabani. Shortcut-keeda maxaa waaye control u. Haddaan ka qaadi rabo haddana control u waan saaraya marka hadda control u saasaan u daynaa. Hagaag next step-ka ayaa aadaynaa font size. Font size iyada maxaa waaye qoraalkan haddaan rabo inaan weyneeyo highlight aan dhihi laba nooc baa u weyneyn karaa. eedan keligeeda meesha ku qorna weyn ayaan click soo siinayaa sababta meesha markaan eeda weyn siina xisaabtan meesha ku qoran oo size-ka way weynaanaysaa. Haddaan eedan yarta click siiyana xisaabta dib u noqonaysa way yaraynaysaa. Haddii kale highlight ayaan saarayaa drop down-kan 11 agtiisaan soo furayaa so hoosan lambaradan hoos aadaya. So the more I go down is the large my text become. Markaan hoos aado textkayga ama qoraalkayga wuu weynaanaya. Haddaan kor aadana the upper the smaller. Haddaan kor aado wuu sii yaraana haddaan hoos aado wuu weynaana. Marka hadda waxaan ka dhigaynaa let's say 20 aan ka dhignaa. Okay, step kale inoogu xiga maxaa waaye waxaa inoogu xigo font style. Font style maxaa waaye qoraalkan nooc uu qorayahay ayaan bedelaya. Highlight ayaan leeyahay
meeshii 11 ku qornayd bidixdeeda drop down ku qoran ayaan saarayaa badanaa calpary ayaa usoo computer ku qoran haddaad rabtid new roman times waxa la saaraysaa marka waxaan waxaaya waa font styleka macnaha isbedelayo qoraalka uu qoran yahay haddaan rabo hoosan soo aadaya so waa kana qoraalka isbedelaya so midka adi u bogtid iyo haddaad waxyaala samaysanaysid tusaale haddaad certificate samaynaysid ama student id card waxyaalaha lagu sameeyo hadhow waa ugu imaan doonaa marka calaa kulli xaal styleka meesha laga bedelo qoraalka inta waa waa tan styleka waan bedelnay next step maxaa waaye font color maxaa waaye qoraalka oo color saarta haddaan ku laabano jumla paragraph koowaad maxaan rabaa inaan red ka dhigo highlight ayaan saarayaa eedaan meesha ku qoran tahay oo la yirahdo font size ama sorry font color ayaan drop downkaas click siinaya then colorka rabaa ayaan saari red aan ka dhigay tan haddaan rabo green aan ka dhigay iyadana highlight aan dhihi click aan siini green adigoo visible la arkayo tan ka dhig haddaan rabo inaan ka qaado highlight aan dhihi meeshaan ku laaban isla aadi drop downkeedi automatic aasaan tick siini saasaan kaga qaado okay maxaan rabaa hadda marka inaan capital letter ka dhigo highlight ayaan dhihi eedan labadan oo midda eeda weyn iyo eeda yar isku aqoran waxaa la yirahdaa uppercase click ayaan siin drop downkaas uppercase ayaan ka dhigi waa capital letter haddaan small letter ka dhigi rabo highlight ayaan dhihi meeshaan ku noqoni lower case ayaan dhihi haddaan aan samayn rabo wax isku dhex jirjiraan small letter capital letter tusaalahaan aan ka dhigi rabo erey password camal aan samayn rabo highlight aan dhihi erey keligiis meeshaan aadi maxaan aadi uppercase then waxaan dhihi tago case so mid yar iyo mid weyn waa isku dhex daraysaa waxaan rabaa inaan ka dhigo waxa la yirahdaa capitalize each word xaraf kasta xarafku ka bilowda inaan capital letter ka dhigo highlight ayaan dhihi meeshaan ku noqonaya uppercase then waxaan leeyahay capitalize each word so xaraf walba midku ka bilowda waa capital oda ida tidan kale xaraf kasta midku ka bilowda wuxuu ka dhigi capital letter formatting text intaas waayo next lesson ayaan aadaynaa insha allah next lesson wuxuu noqon doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo paragraph formatting ayuu noqon doonaa insha allah aad ayaan in salaamayaa asalaamu allahi tacaala wabarakaatu